aflagaadeeyey aniga iyo dhowr qof oo kale kadib caydii ayaa waxaan ku soo dhex darnay nabiga sallallahu alayhi wasallam umaanan jeedin in aan nabiga caayo weligeyna ma caayin nabiga sallallahu alayhi wasallam habeenka ka hor balse afka unbaa iga soo dhacay sheekh marka xukunkaygu muxuu noqonayaa ayadoo sidaa tahay xukunkaadu waa laba qaybood haddii carabku kaa boobay sabqu lisaan wixii la odhan jiray adoo raba inaad hebel caydo ood ruux kala caydo haddii carabku kaaga dhacay waxba laguma haysto istighfaar la imaam allah toobadkeen wax badan oo laga raba ma jiro laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah qof islaam oo ashhaadanayahay haddii laakiin adoo miyirkaadu taam yahay si carabku asoon kaa dafina aad nabiga carabka ku dhufatay muslimiinta waxaa waajib ku ah haddaadan toobadkeen inay ku dilaan muslimiinta waajib waxaa ku ah ku yaqaana ama kaa warqaba ama haddaba ku maqlahaya meeshay kugu arkaan inay kugu beegsadaan waajib bay ku tahay oo dhiiggaada daadshaan mar baa daad subanihii aad carabkaadii ku jexjeexdood ku cayday haddii aad toobad keento xataa oo dembiga aad ka toobad keento nabiga caydiisa ah culimada waxay qabaan xataa in lagu dili karo oo toobadda isku badbaadanayn hawl khatara weeye ha la iska ilaaliyo suubanaha cirdigiisa sharaftiisa magaciisa meelka dhaciisa waa in la iska ilaaliyo suuragalla ma aha hadda in ruux muslim ah oo iimaan leh oo iimaan ka asaxay oo nabiga aflagaaday waxna ka sheego wallahu subxaanahu wa tacaala aclam